Bismillah, alxamdulilah. Waa qaybtii labaad ee sheekadii la magac baxday Saxaraha Marka ilaa Immobile-ka Toronto, safarkii dhibka badnaa. Haddaadan qaybtii hore soo daawan, fadlan dib ugu laabo qaybtii koowaad. Xiise gooni ayay leedahay. Markana waxaan guda galaynaa qaybta labaad oo inoo ka bilaabanaysa xaafadda Basaatiin ee magaalada Cadan ama dalka Yemen. Haruun markii uu bartay luqadda Carabiga, markiiba wuxuu bilaabay inuu bilaabo iskuul uu ku baranayo luqadda Ingiriisiga iyo sida loo isticmaalo kombiyuutarka. Isagoo la qabsaday magaaladii nolosheeda, ganacsigii walaashiisna mas'uul ka ah oo maamulaha guud u ah, ayaa markani waxaa soo siyaaday inuu go'aansado inuu dalka ka baxo Yemen oo aado dhanka iyo Sacuudiga oo markiisii horeba oo u sii jihaysnaa. Haruun oo kusii jira baadigoobka muqallaskii u wadi lahaa Sacuudiga ayaa waxaa wiil ay isku barteen galaaska luqadda Ingiriisiga oo lagu magacaabo Lutfi ayaa wuxuu kula taliyey inuu la xiriiro nin lagu magacaabo Cawad, ninkaa oo Soomaali ah yaqaana muqallaska dadka kaxeeya. Kadib markuu la xiriiray Cawadna wuxuu ku xiray Cabdalla Baydani, nin la yiraahdo Yemeni ah oo gaari leh dadkana u qaada dhanka iyo xaduudka Sacuudiga. Muddo yar kadib safarkii waxaa bilowday oo ku aadayay Sacuudiga, waxaana kaxeeyay Cabdalla Baydani oo geeyey meeshii uu u jihaysnaa ee magaalada ugu sokaysa dhanka xuduudka Yemen iyo Sacuudiga. Kadibna waxay bilaabeen safarkoodii lugta ahaa oo lagu galayay Sacuudiga. Socdaal maalin iyo habeen qaatay kadib waxay gaareen magaaladii ugu soo sokaysay ka mid ah magaalooyinka ugu sokeeya xuduudka dhanka Yemen iyo Sacuudiga ee magaalada lagu magacaabo Baacureesh ayay waxay ku nagaadeen 3 maalin. Kadibna dhalinyaradii kale waxay go'aansadeen inay sii baxaan, halka Haruun uu ka helay shaqo magaalada Baacureesh uu noqday ari jire oo ariga ku raacayay magaaladaas tuulooyinka u dhow magaalada banaankeeda ku yaala oo ku caana xoolo dhaqashada. In yar kadib markuu muddo bil ah ka shaqaynayay ari jiranimada ayuu wuxuu go'aansaday inuu u socdaalo dhanka iyo Jidda, maadaama uu hadda helay wax yar oo qarash ah oo ku dhaqaaqo. Magaaladii Jidda ayuu gaaray. Jidda ayuu shaqo ka bilaabay, wuxuuna noqday furinle oo wuxuu shaqo ka helay foorno lagu sameeyaa waxyaabaha la dubo sida buskudka iyo rootiga iyo doolshooyinka. Isaga oo jooga magaalada Jidda muddo bil iyo bar ah oo sidiisa alyoomka u soo dhacsada shaqadiisana u aada, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa askar ku qabatay jidka oo ay joojiyeen, sharcigiina weydiiyeen. Kadib markii uu sheegay inuu yahay nin bilaa sharci ah, waa la xiray, waxaana lagu daray listiga dadka la tarxiilayo ee lagu celinayo Soomaaliya. Waxyar kadib maalmaha waa la celiyey oo waxaa laga dejiyey garoonka magaalada Muqdisho u dhow ee lagu magacaabo number 50 oo markaa ahaa garoonka keliya ee magaalada Muqdisho looga soo dego xagga dibadda. Shirkadda diyaaradda Daala ayaa waqtigaa waxay lahayd basas ka qaada shacabka ee diyaaradda airportka number 50 geeyana magaalada Muqdisho gudaheeda, khaasatan Balaxi iyo Baar Waxmaan u dhaxayso ee ayaga xafiis ku leeyihiin. Haruun oona ku faraxsaneen kusoo noqoshada magaalada Muqdisho oo asagoo juduba lagu soo celiyey, ayaa markiiba wuxuu bilaabay inuu gudaha u galo suuqa bakaaraha si uu u sarrifto lacagaha Sacuudi Arabiyaanka uu wato. Kadibna uga raaco bas uu ku tago xaafadiisii Hurwaa ee dib ugu noqdana dadkiisii iyo ahalkiisii iyo walaalihiiba. Isla maalinkiiba wuxuu gaaray gurigiisii ama gurigii waalidkiisii ayuu dib ugu laabtay. Kadibna waa la soo dhaweeyey hooyadii iyo walaalihii markaaba bilaynin in la soo celinayo oo aanan ogeyn inuu dalka dhinac ugu soo laabtay. Markiiba soo dhaweeyeen. Sidoo kalena wuxuu dib ula midoobay asxaabtiisii oo ku jiro Maxamuud oo markaani jooga Muqdisho iyo walaashiis Faa'iza oo iyadana dalxiis u joogta magaalada Muqdisho, maadaama iyadu deegaan ay ku tahay oo reer ku leedahay magaalada Boosaaso. Xilligan waxay dalxiis ku timaaday magaalada Muqdisho. Dhanka kale, Haruun magaaladii wuu la qabsaday oo dadkiisii buu dib ugu soo midoobay, laakiin ma uusan ahayn qof ku faraxsan nolosha. Dib ugu noolaaday shaqo la'aanta iyo walwalka ku haya dagaalada dalka ka socda. Isla markiiba saaxiibadii way aqoonsadeen oo way garteen inuu yahay qof bedelmay, oo ayagu waxay u qaateen dhanka negative-ka ma aysan u qaadan dhanka positive-ka.
waxayna markiiba la wadaageen hooyadii oo aad u walwalaysay markaana u sheegeen inuu ninkii aanu ninkii ahayn uu isbedelay uu dadka la soconaynin oo gooni u sheekaysanaynin oo la sheekaysanaynin asaga uun gooni u socda markiiba waxaa hooyadii ay guda gashay inay wiilkeeda maskaxiyan dejiso oo hooyo biyooda lagu yaqaana qof caqiidadeedu adagtahay iyo alla ku-xidhnaashiyaheeda ayaa markiiba wiilkeeda uga sheekaysay nolosha ilaahay wuxuu kuu qadiro in lagu noolaado oo aanan ahayn inaad u hanqaltaagto waxaanan karaankaaga ahayn markiibana waxay u bilowday ganacsi yar oo ah iibinta cabitaanada kala duwan samaynteeda iyo iibinteedaba xilligaasoo ahayd dhammaadkii 2005 markiiba waxaa soo xurtay dagaaladii lagula wareegayay magaalada muqdisho ee maxaakiimta kula wareegaysay kaga qaadanaysay awoodda dhinaca hogaamiye kooxeedyadii magaalada kala googooyay markiina magaalada isku fureen ganacsigii Haaruun wuu bulaalay oo kasaro u kacay maadaama magaaladu dhaqaale zaa'id soo galay oo ammaankeeduna uu wanaagsanaaday Haaruunna waa la qabsaday oo ganacsigiisii buu sii watay ma aysan sii dheeraan oo 6 bilood kadib waxaa magaaladii muqdisho kala wareegay ciidamo Ethiopian oo la socdo Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii Soomaaliya ee ku meel gaarka ah intii badneed maxaakiimta magaalada muqdisho isaga baxeen maadaama Ethiopianka ciidamadii la socday Cabdullaahi Yuusuf ay la wareegeen laakiin waxaa ku haray ciidamo al-shabaab ah oo xilliga lagu yeeri jiray muqaawamada saldhigooduna uu ahaa degmada Hurwaa xaafadii Haaruun ku soo koray una deganaa maadaama madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu doonayay inuu gacan ku haynta magaalada muqdisho ay gacantiisa soo gasho ayuu wuxuu weerar ku qaaday degmada Hurwaa oo markaa ahayd saldhigii muqaawamada isla markiina ku duqeeyeen hubiyaal oo dad badan ku dhinteen degmadana qasabtay in laga kala qaxo Haaruun iyo reerkiisii waxay go'aansadeen sida dadka kale taba inay isaga qaxaan degmada balse Haaruun wuxuu go'aansaday inuu guriga waardiyeeyo maadaama waalidkii iyo dadka dhan ay kala tageen oo tuugada baylax u noqonin markiiba waalidkii iyo walaalihii waxay u qaxeen dhanka iskool bulisiya ah degmada Waaberi asagana wuxuu ku haray degmadiisii Hurwaa iyo gurigiisa waardiyeynta dhalinyaro yar oo ku soo haray degmada oo waardiyeynaya mid walba guryahooda ayaa maalinkii waxay isugu imaan jireen hal meel wada iska warhay jireen nin walba xaalkiisa waana isku garab qaban jireen habeenkiina guryahooda u kala hoday jireen maalmaha ka mid ah oo dagaalku aad u kululaa ayaa waxaa dhacday Haaruun oo asxaabtiisii markaa ka istaagay agtooda inuu ku soo agdhaco hoobiye oo laayo intii badneed dhalinyarada markiiba wuxuu Haaruun soo laabtay dhalinyaradii asxaabtiisii uu galay inuu qarab siiyo qaarkoodna loo qaado dhanka iyo isbitaal SOS kuwa kalena wixii la aasi kara la aaso Haaruun oo markaan tala faradiisa ka baxday oo aanan ganacsigiisina burburay reerkiisuna u qaxeen dhanka iyo Waaberi asagana asxaabtiisii qaar la-deen qaarna dhaawac yihiin oo wax yar soo haray ayuu wuxuu go'aansaday inuu ka tago degmada Hurwaa oo asagana ku biiro dhanka iyo reerkiisa halkay joogaan oo haddaan sawir guud idinka siiyo xilligaas sida u ekay degmada Hurwaa waxaa ka xirnayd magaalada muqdisho inteeda kaleeto sida Kaaraan iyo Yaaqshi midna ma aysan ku aadi karin gawaarida laakiin waxaa u furneed keliya dhanka suuqa xoolaha oo wadada X-Control ee aadayso Balcad iyo in yar oo waqooyi bari ah oo ay waxar cadday iyo kaga aadi karaan dhanka iyo Risalli Haaruun oo doonaya inuu gaaro dhanka Waaberi ayaa lug kaga baxay degmada Hurwaa oo dhaxmaray qadkii cagaarnaa ee xilligii 1993 la dhigay oo dhaxmaray kadibna Jamhuuriya saa uu ku gaaray Kaaraan intii uu ku sii jiray jidka waxaa rasaas telltale ku soo agdhacayeen agtiisa oo ekaa in Sam Shooter soo tuurayo oo agtiisa ku dhacayso balse Ilaahay waa ka nabadgeliyay oo wuxuu nabad tagay gudahana u galay degmada Kaaraan halkaana gaari ka raacay kuna gaaray Xamar Jajab kadibna uu sii gudbay xagga iyo iskool bulisiya oo waalidkii oo markaa ka walwalsanaa dib ula midoobay asagoo caafimaad qaba muddo 2 bilood kadib dagaalkii waa ka joogsaday degmada Hurwaa muqaawamadiina waa isaga kala baxeen ayagoo civil iska dhigaya shacabna dhinacyada ka joogeen
dadkii shacabkiina magaaladii degmadii dib ay ugu soo laabteen oo Haruun iyo reerkiisina way u soo laabteen ayagana. Haruun markiiba wuxuu iska bilaabay iskuul maadaama ganacsigii ka burburay oo waddanka kala xirxiran yahay welina aanan la isku kalsoonaan karin. Wuxuu qaatay koorso 6 bilood ah oo lagu baranayo gargaarka degdega 3 bilood ugu horeysa barasho ah 3 dambena practice ay tahay uu ku dhiganayo isbitaal Martini ee ku yaala degmada Xamar Jajab iyo Xamar Weyne ee dhexdooda. kadib markuu dhameeyay iskuulkii oo magaaladan sideedii u qasan tahay oo dagaaladina ay jiraan iyo qaraxyo iyo habeen kasto wax la isku turtuurayo Haruun wuxuu go'aansaday inaanu Muqdisho waqti iskaga lumin siina joogin waalidkiina wuu la tashtay kadibna wuxuu go'aan ku gaaray inuu safarkiisii labaad oo uga baxayay Muqdisho kuna aadayay dhanka iyo Hargeysa uu bilaabo 25 bisha 12aad 2007 ayuu Haruun safar dhulka ah uga baxay magaalada Muqdisho asagoo ku wajahan magaalada Hargeysa wuxuuna sii maray magaalooyinka kala ah sida Jowhar iyo Beledweyne iyo Galkacyo iyo Garowe kadibna dhanka waqooyiga wuxuu sii maray dhanka iyo Burco iyo 3 maalin kadib wuxuu gaaray magaalada Hargeysa oo uusan dadna ka aqoonin kuna degay hotel muddo yar oo dad heybinaya kadib wuxuu helay wiil saaxiibay inuu lagu magacaabo Nuur Fanax ayaa wuxuu ka caawiyay inuu helo dad qaraabadiisa ah oo magaalada dhinac ka degan isla markiiba reer adeer Maxamed way soo dhaweeyeen qaasatan hooyo Faadumo Fuaad iyo Fadhiya si wanaagsan bay Haruun soo dhaweeyeen Haruun markiiba waa la qabsaday magaalada wuxuuna bilaabay inuu la shaqeysto dhalinyaro ku shaqeysanaysay harqaanka asagana wuxuu bartay harqaankii asagoo ku shaqeysanayo muddo 6 bilood ah oo magaaladina la qabsaday ayaa haddana waxaa ku dhalatay inuu safar kale uga sii baxo uu aado dhanka Djibouti markaan wuxuu ku wajahan yahay Suudaan maadaama uu arkay dhalinyaro badan oo meesha ku soo martay oo u sii socota dhanka Liibiya oo sii maraya Suudaan wuxuuna u tababushaystay bixitaankiisii uu ku aadi lahaa dhanka Suudaan sheekada halkan ayaan ku soo joojinaynaa qisada waxay ka bilaabanaysaa markuu u baxayo safarka Suudaan marka waan ka xunahay inaan si dhameystiri kari weyno fadlan la soco qaybaha dambe mar dhow ayaan soo gelin doonaa sidoo kalena nagu soo biir oo subscribe saar page-ka mar dhow waxaad helaysaa qaybaha kale ee sheekada haddii aad ka hesho sheekadan fadlan noo dhaaf suulka kor u taagan aad baan ugu mahadsantihiin la socoshada sheekadan waa